komishanka xakamaynta HIV/AIDS-ka Somaliland ayaa magaalada Burco ku qabatay tababar ku saabsan abuurista iyo dardargelinta gudiyada heer bulsho ee wacyigelinta xanuunka HIV/AIDS-ka ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer. waxaana tababarkani ka qayb galayay gudiyada kala duwan ee xaafadaha Burco iyadoo tababarkaasi soo qaban qaabiyay komishanka xakamaynta HIV/AIDS-ka ee Somaliland. sidoo kale komishanka xakamaynta HIV/AIDS-ka ee qaranka Somaliland waxa uu magaalada Burco ku qabtay tababar ku saabsan la talinta caafimaad ee ka hor iyo kadib baaritaanka xanuunka HIV/AIDS-ka waxaana ka qayb galaya howlwadeenada caafimaad ee MCH-da Burco iyadoo tababarkan uu soo qaban qaabiyay komishanka xakamaynta HIV/AIDS-ka ee qaranka Somaliland iyo sidoo kale ay gacan ka geysatay tababaradani hay'adda UNFPA. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay sidoo komishanka xakamaynta HIV/AIDS-ka ee gobolka Togdheer Mahdi Jaamac Nuur waxaana uu ka warramay ujeedada laga leeyahay tababaradan kala duwan. guddi heer gobola oo ka kooban 7 wasaaradood oo komishanka qaranka xakamaynta AIDS-ka la shaqeeya iyo barasaabka waxaanu rabnaa inaynu community kale ka sameeyno gudiyo badan ka haya. ujeedadeena ugu weyn waxa weeyaan inaynu sameeyno bulshadeena wax badan baa ku dhex jira, wax badan baa fidaya, xanuuno badan baa jira. HIV-gu waa kuwa ugu daran ee sida hoose ee aan la dareemin u fidaya. sida awgeed waxaynu go'aansanay inaynu dhammaanteen isku xidhanno ilaa heer qaran ilaa iyo heer xaafadeed. marka aynu joints noqono isku wada xidhnaano ee gudiyo iyo marxaladaha aynu la wada socono waxa laga yaabaa inaynu wax badan xakamayno. xaafadaha dhib badan baa ka jirta, takoor badan baa ka jira qofka xanuunka lagu sheegay xaafadaha kamida. waxa soo dhameeyay wixii gudidan waa wixii si ku soo xidhi lahayd wasaaradda caafimaadka ee komishanka cidii ay la kulmaan waxyaabaas ku dhacaan. meelaha ay arkaan inay u baahan yihiin wacyigelin dheeraad ah inay ka sameeyaanna iyagoo voluntary bay sameynayaan oo iyagu dadka la hadlayaan, iyagu qoys ahaan ugu tegayaan, iyagu qof ahaan ula kulmi karayaan. waa marka qofku isagu istiro isku kalsoonaado. waxaynu u baahanahay inaynu soo dhaadhicinno heer gobol, heer degmo, heer tuulo saynu gaadhno oo dadku isugu xidhmaan. ujeedadu waa intaasuun. agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha ee komishanka xakamaynta HIV-ga ee qaranka Somaliland Maxamed Jaamac Siciid ayaa dhankiisa ku dheeraaday doorka komishanka xakamaynta ee HIV/AIDS-ka Somaliland ka leeyahay wacyigelinta iyo sidoo ka digtoonaanta xanuunkaasi. waxaanu halkan ku furi doonaa tababar noo socon doona hal maalin kaasoo noqon doona qaabka wada shaqayn lahaayeen gudiyada xaafadaha ee degmada Burco iyo komishanka qaranka xakamaynta AIDS-ka. taasoo aynu gacmaha isqabsano inuu shaqadii wacyigelinta iyo wax kasta oo muuqanaysa looga baahan yahay xafiiskan aynu ka wada xiriirno. halkan imika waxa kala hadlayay isu duwamahdi waa ninka mas'uulka ugu sareeya heer gobol ee komishanka qaranka xakamaynta AIDS-ka ay la shaqayn doontaan insha Allah. waxa la sameyn doonaa hal gudi oo noqon doonta gudiga degmada Burco. imika xaafadiina waxa laga yaabaa in gudigiiba laba qof aan qof laga soo xulo. intaas la isku xiri doonaa gudi guud laga sameyn doonaa oo la shaqeeya xafiiska. awal buu soo wadeen shaqo mutadawacnimo oo qarankiina uu soo wadeen. tana waa qayb kamid ah shaqada qarankuna way isku xiran tahay bulshadii iyo isku xiran yihiin iyo dawladdu. dawladduna gacanteedu waa shacabka. laf dhabarteedu waa shacabka. shacabkay ka timi shacabka uu shaqeynaysa shacabka la shaqeynaya. marka hadaynu gacmaha isqabsano wax badan banu gooyin karnaa. Khaliil Barraawran warbaahinta qaranka Somaliland Burco.